shirkadda dhismaha Manaka Construction Company oo kamid ah shirkadaha waaweyn ee ku caan dhismayaasha bilicsan ee ka jira dalka ayaa soo gabagabaysay dhamaystirka masjidka weynaa ee magaalada Ceergaabo waxaana arintaasi waxqabadka shirkadda ku bogaadiyay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland iyo waliba mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada iyo waliba madaxa hay'adda Qarnul Afriqi iyo waliba qaar kamid ah shacab weynaha ku dhaqan gobolka kuwaas oo si weyn u soo dhaweeyay degmada Ceergaabo gaar ahaan caasimadda maxaan ku radaa Ceergaabo waxa runtii ka muuqata shaqo hufan oo dad Soomaaliland darsi ay qabteen shirkado runtii lagu xasun karo waxqabadkeeda Ceergaabo oo dhismaysa oo taa muuqata fooqbeen afar fooq ay mudubay muuqda waxaan rajaynayaa in ka badan inay ka bilaabanto insha Allah barakada masaajidka dartii waxaan oran lahaa sida gudoomiye iyo laba gudoomiye sheegeen gobol iyo heer degmada ee ka warhaysaan shirkadda Manaka xaq bay u yeelatay waxa kale oo ugu mahadnaqaysay sheegeen warbixintoodii oo amana ilowdeen in ay tababareen shaqaale xirfadlayaal ah كوني ما نقينو أمانة شركة قعنتنا لهاي وحنا لنا هاي قعنتنا الله يدين بركيه قعنتنا الله يدين بركيه مساعد قلوب بلبنا ولستين قعنتنا الله يدين بركيه وحيد الاسبوع المصدر مع السياق حاجة كي مدنا وأنا ذكر هاي تونا وأنا نورتنا الله يدين نوره أنا قفل لي مقعد مدة عرقابه سعادة الوزير وعنو مهدنا غينا شركة أمانة شركة الاشتري مسجد كان وسيدة هذا قصوا بحري وحن لنا هاي الله يدين بركيه خير الله يدين شيئه ميزانك حسناتكم هذه قدروا وإرسنا عرقابنا إن شاء الله تعالى كل يوم نخصينا ونحسنان دورنا الله ذكريا إن هي مساجك وروح بدنا الله يديكان الصومالي وطني إنه هي مساجك وروح بدنا أيا الله ذكريا إلهي وحن كبرين وكأقبله إنكي سوبحي يعدي كسر دميسي يعني نجي لسنيبه وعن كلام محمد يا شركة الصفي عن يقولوا هذا بدنا مساجد كودستي مانكا أو يلودستي إنه تهجلستي أو إنجنير كأحد مساجد جامعينا أكبر محمد غيا قبل أفريقيا لفتي كده ليش رئيسنا أكبر محمد غيا وحسون الكاسي هذا لما هاد علينا وكادن مسؤولين تسيق ودهان بالشعب وينها قبل كسناج يوليبا وحقبت كشركة يوليبا هذاك هوفنا برشة ذا يو هيسوا هالكاسي كوسو بدك إنجنير حمزة فارع جدي مساجد كواد أفرتي صدنا ama afarta jihaba laga wareejiyo dhagaxa cad ee quruxda badan ee ay caanka ku tahay Soomaaliland ma jira masaajid ka horeeyay oo aan filay dhulka Soomaalida inuu ka samaysan yahay oo afarta dhinac runtii dhagaxa ku leh gidaarkiisu waa 60 senti 20 dhagax cada iyo 40 kale oo dabara marka waxaan ugu talagalay runtii 200 oo sanadood in aanu baalkaasi u baahanin wax ribeerina dhiirashanka aanu shirkadahan ugu talagalay marka aanu design-ka sameeynay sidaas weeye marka masaajidkaasi afarta dhinac dhagax buu ku leeyahay waxaan ugu talagalay oo aan runtii doonaynaa magaalada way koraysaa way balaaran doontaa insha Allah masaajidkaas waxay noo qaadi doonaa afar dabaqo dambe design-ka aan ugu talagalay structure ahaan marka la eego afar dabaqo dambe ayaa awood u leeyahay dhismaha imka inoo samaysan inuu qaato taas weeye guud ahaan mujtamaca Soomaaliland meel kasta ay joogaan iyo mujtamaca kale Soomaaliyeed waxaan ula diyaarnahay nashqado wanaagsan oo bilic leh waxaan ula diyaarnahay dhismayaal taliya leh waxaan ula diyaarnahay shaqaale jaban oo arkaysan runtii hareerahayga taagan ومشروع عاصر runtii 700 kilomitir u jira caasimadda Soomaaliland sida qurux badan looga hirgeliyay علي الظاهر TV ga caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo